السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مقال كان وحين كيغدونا معجزة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبت كل كركيس هاته وحا وغير دمان قون كيسين الله سبحانه وتعالى عابدان أو أي كتغان أصنع عابديان. waxa uu u fahansiiyay si kasta iyo qaab kasnaantani caabudeen aanay ilaahay ahayn laakiin qoomkiisii way beeniyeen oo arrinkiisii may qaadan kadib nabi ibraahim waxa uu burburiyay asnaamtoodii si uu u tuso daciifnimadooda iyo tagdaradooda waxa ay caabudayaan kadib markii ay weydiiyeen ibraahim oo asnaamteeda maadasan ku sameeyay waxa uu ugu jawaabay anigu kuma sameeyna kooga u weyn weydiiya hadduu in la hadlayo kadib way ka laabteen iyaga oo takafaarsan waxa ayna ku heshiiyeen inay ibraahim ku tuuraan dab si ay ugu soo argudaan ilaahyadoodii waxa ay soo uriyeen qoryo fara badan waxa ay noqdeen god aad u dheer godkaana waxa ay ka shideen dab aad iyo aad u holcaya intaas kadib waxa ay saareen nabi ibraahim naxariis iyo nabad korye karkiisa ahaatee baalka loo yaqaan minjaniiq baalka sida injirka oo kale weey iyagoo ka baqaya inuu dabka holciisa u taabsado markii ay ku tuureen nabi ibraahim baalkii loo yaqaan minjaniiq nabi ibraahim waxa uu yiri xasbi allah wa ni'mal wakiil intaas kadib waxa uu yimid nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil waxa uu ku yiri ibraahim wax kaalmo ah ma iga baahan tahay nabi ibraahim naxariis iyo nabad kulli karkiisa ahaatee wuxuu ku yiri maya adiga naxariiskaaga ma baahni ee allah subhanahu wa ta'ala ayaa naxariis ugu baahanahay kadib markii ay ku tuureen qoomkiisii nabi ibraahim dabka waxa ay u maleynayeen inuu lafihiisa loogu tagi doono godka laakiin mucjisadu waxay ahayd inuu allah subhanahu wa ta'ala dabka ila hadlay ku yiri qul ya naaru kuni bardan wa salaaman ala ibraahim طب يا هون نقه متقبو أو نبتكري النبي إبراهيم سيدا النبي إبراهيم نكبت بادي إن شاء الله تعالى حقا بين كسو كوبينا برنامج كينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.